وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن waxaan halkan ku duubanaa casharada dugsiga hoose dhexe ee cigaal primary gaar ahaan maadada social ee grade 6 ama fasalka 6 waxaanu sii bilaabi doonaa casharadeennii taxana ahaa halkii ay nagu joogeen baan ka sii bilaabi doonaa fasalka 6 ee cilmi bulsho wuxuu nagu joogay cutubka afraad ciwaan hoosaadyo kamid ah haddii aan is xasuusino markaas ciwaan hoosaadyadii qaar kamid ah wuxuu ka hadlayay 10 taariikh ah waa imaatinkii maamulkii gumeystaha ee geeska Afrika siyaabii iyo ujeedadii u yimid buu markaas ka hadlayay waxaan soo dhignay dhowr wadan marka waxaan marka koobaad horta isweydiin doonaa waa maxay ujeedada ugu weyn ee Yurubiyaanku u yimaadeen qaaradda Afrika oo jawaabteedu ahayd waxay u yimaadeen ama ujeedada ugu weyn ahayd inay wax ka ogaadaan qaaradda Afrika inay wax ka ogaadaan qaaradda Afrika ayaa ahayd ujeedada ugu weyn casharadan soo dhiganay waxa kale oo kamid ahaa gelitaankii Ingiriiska ee Suudaan gelitaankii Ingiriiska ee Suudaan Ingiriisku markaa Suudaan wuxuu soo galay 1898kii wuxuuna ku soo galay markaasi si xoog ah ayuu ku soo galay markaa waxa kale oo soo dhiganay maamulkii Faransiiska ee Djibouti markaa Djibouti Ingiriisku wuxuu soo galay 1888 maamulkiisii ugu horeeyana waxa uu ka dhigay nin Faransiis ah oo la oran jiray Leonas Lagarde waxa kale oo soo dhiganay gumeysiga Talyaaniga ee Soomaaliya siyaabii ku soo galay markii uu Talyaanigu Soomaaliya soo galayay wuxuu sameeyay markaas Talyaanigu xeebaha Banaadir ayuu wuxuu ka iibsaday suldaan la oran jiray Zanzibar 1890 waxa kale oo soo dhiganay qabsashadii Ingiriiska ee Somaliland Ingiriisku markaas Somaliland wuxuu soo galay 1884 waan hoosaadkii inoogu xigaa waa kan maanta inoo qoran waa kan aynu arkano waa qabsashadii Talyaaniga ee markaas Ethiopia wadanka la yiraahdo Ethiopia waxa la yiraahdaa inta badan waa wadan aan la gumeysan laakiin taariikh ahaan waxa si dadban u gumeystay gumeystihii Talyaanigu wuxuu kamid ah gumeystayaasha soo maray geeska Afrika habka siyaasadeedkii ama maamulkii Talyaanigu hadii aynu markaa taariikh kooban ku bilowno sidii uu markaas u gumeystay wadanka Ethiopia markii koobaad gumeystaha Talyaaniga ayaa wuxuu dagaal ku dhexmaray isagii Ethiopia markaas dagaal ayaa dhexmaray ciidamada Ethiopia iyo ciidamadii gumeystiga Talyaaniga sanadihii waxa 1896 dagaalkana waxa loo yaqaanay dagaalkii Cadawa waxa ku adkaaday oo laga adkaaday gumeystiga Talyaaniga waxa markaas adkaaday wadanka Ethiopia dalka Talyaanigu markaa wuxuu doonayay waqtiga uu ka argoosto Ethiopia Talyaanigu markii uu markaa qabsaday Liibiya Eritrea iyo Soomaaliya saddexdaa wadan bay isaga gumeysan jiray waa Liibiya waa Eritrea markaasi waa maxay waa Soomaaliya wuxuu doonayay markaas inuu qorsheynayay inuu noqdo wadanka gumeystaha ee ku badan bariga ama geeska Afrika wuxuu doonayay inuu ka qabsado oo uu ka badnaado gumeystayaashii geeska Afrika joogay ee ay kamid ahaayeen Ingiriis iyo Faransiis Ingiriis oo Somaliland ah iyo Suudaan iyo Faransiis oo ah maxay Djibouti sanadkii 1920 Talyaanigu waxa uu markaas heshiis la saxeexday Ingiriiska oo lagu dhisay jid tareena oo isku xidha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya marka hab siyaasadeed cusub maadaama uu dagaal iyo awood u isticmaalay Talyaanigu Ethiopia wuxuu doonayaa hab siyaasadeed
markaa uu ku galo oo uu ku gumaysto markaa wuxuu doonaya inuu ku galo jid tareena si uu markaasi gumaysigu ugu fududaado heshiiskaasi ayuu doonayay inuu markaasi uu ku galo oo uu ku gumaysto Ethiopia waxa daba heshiiska diiday jidka tareenka ah ee laga dhisay Ethiopia ee isku xidhaya wadamadaasi Ethiopia ayaa diiday Ethiopia daba waxay ku biirtay ururka ummadaha oo ahaa urur markaasi waqtigii jiray dagaalkii koobaad ee adduunka dibadii la aasaasay markii oo ujeedadiisuna ahayd si uu markaasi u xaliyo nabadgeliyada markaasi uu dhaliyo si uu markaasi u xaliyo xasaradaha adduunka ka dhaca ama wadamada had iyo jeer dagaalama si uu dhexdhexaadiyo oo heshiisiin markaasi u sameeyo oo maanta halka ay qaramada midoobay ku jirto oo kala ayaa markaa ururka ummaduhuna asaas oo kala ayuu ahaa markaa wuxuu Ethiopia ayaa ku biirtay ururkii ummadaha qorshihii Talyaaniga way markaasi u diiday sanadkii 1943 waxa uu dagaal ku dhex maray ciidamada Ethiopia iyo kuwa Talyaaniga waa dagaal labaad oo markaasi dhex maray Ethiopia iyo gumaysigii Talyaaniga Ethiopia waxa ay markaasi dacwad u gudbisay ururkii ummadda dacwada Ethiopia laakiin si ay ururka ummadda u gudbiyeen waxba laga ma qaban waayo ururka ummaddu wuxuu ku mashquulsanaa dacwad culus oo ahayd weerarkii uu Jarmalku soo qaaday wadanka Jarmalka ayaa wuxuu isagna jirtay xasarado badan oo markaa ay weeraro dagaal oo ku jiray oo ku mashquulsanaa xarintiisa ururka ummaduhu markaa dacwadii Ethiopia noqotay fudud wuxuu markaa ku mashquulsanaa markaa gumaystigii Jarmalka iyo weeraradii uu qaaday sanadkii 1935 Talyaanigu wuxuu sameeyay ciidamo ka kooban Eritrea Soomaaliya ama Soomaali waxa uu markaasi weeraray wadanka markaasi Talyaaniga wuxuuna weeraray wadanka Ethiopia ciidanku waxayna ka koobnaayeen 120,000 oo Talyaaniga iyo 100,000 oo markaasi Soomaali ah waa 220,000 waa 120,000 oo Talyaaniga 100,000 oo ka kooban Eritrean iyo Soomaali Talyaanigu markaasi ciidanka awood badan leh wuxuu ku qabsaday Ethiopia wuxuuna markaasi u sameeyay maamul buu u magacaabay wuxuuna u magacaabay markaasi nin Talyaaniga oo la oran jiray Sareeyo Guuto oo la oran jiray Gasarani Sareeyo Guuto Gasarani wuxuuna markaasi fuliyay hadaba ninkaasi maamulka loo magacaabay mashaariic badan maamulkii Talyaaniguna wuxuu dhamaaday sanadkii 1941 markii uu galay Talyaanigu dagaalkii labaad ee adduunka ciidamadii Ingiriiska ee joogay dhinaca Suudaan waxa ay soo galeen markaasi Ethiopia waa ciidamadii joogay dhinaca Suudaan ee Ingiriiska ayaa waxay soo galeen Ethiopia Eritrea iyo ciidamadii Soomaaliduna waa isdhiibeen markaasi hareerihii baa laga soo galay maadaama uu ciidankii Talyaanigu isagna dagaal kala galay ciidankii Ethiopia u shaqeeyay uu yaraaday dawladda Suudaan ayaa markaasi la jaarayd ciidamadii Ingiriiska dhinaca Suudaan ka soo gashay Ethiopia markaa ciidamadii Soomaalida iyo Eritrean ka koobnaa ee marka hore caawinayay Talyaaniga way isdhiibeen oo markaasi waxay noqdeen kuwa u eekaaday in laga awood badanayo markaa Talyaanigi sidaas ayuu markaasi xukunkiisii ku dhamaaday kadibna markii la jabiyay Talyaaniga ayaa uu xukunkii waxa ku soo noqday boqorkii markaa ugu dambeeyay ee la oran jiray Haile Selassie ilaa isaga laga afkambiyay oo ahaa boqor kalidii Taliya ah oo muddo dheer wadanka Ethiopia ka talinayay markaasna wuxuu mar labaad xilkii ku soo noqday markii uu dhamaaday maamulkii Talyaanigu waxaanu ciwaan hoosaadkeena markaasi iska weydiin doonaa ka hor inta aynanu bilaabin markaasi gumaystihii Talyaanigu goormuu dhacay dagaalkii Cadawa ee dhexmaray Talyaaniga iyo Ethiopia 1896 magacaw markii labaad ee uu dagaal dhexmaray Talyaaniga iyo Ethiopia 1934 magacaw cidii ay kaga dacwatay Ethiopia markaasi weerarkii iyo dagaaladii uu Talyaanigu soo qaaday ururkii ummadaha
goormuu weerar culus ku soo qaaday gumaystihii talyaanigu dalka Ethiopia 1935 ciidamadii markaasi 1935 talyaanigu watay imisa lagu qiyaasay tiradooda waxa lagu qiyaasay 120,000 oo Talyaaniya iyo 100,000 oo ka kooban Soomaali iyo Eritrean goormuu dhamaaday maamulkii Talyaaniga ee Ethiopia wuxuu dhamaaday markii uu Talyaanigu galay dagaalkii labaad ee adduunka 1941 markii uu dhamaaday maamulkii gumaystay Talyaaniga ee Ethiopia ayaa taladii dalka Ethiopia la wareegay waxa la wareegay boqorkii la oran jiray Haile Selassie ciwaanaadkeena ku xiga 10 waxa uu noqonayaa raadkii gumaystaha ee Geeska Afrika gumaystuhu raadad fara badan ayaa uu sameeyay oo markaa uu Geeska Afrika ahaa waxa kamid ah 3 baynu ka soo qaadan doonaa raadadka ugu muhiimsan ee uu markaas Geeska Afrika ka geystay waxa koow ka ahaa xagga siyaasadda saameyn buu ka markaas sameeyay xagga dhaqaalaha iyo xuduudda saddexdaas aynu soo qaadan doonaa haddaba xagga siyaasadda haddii aynu markaa sharaxaad kooban ka bixino gumaystuhu waxa uu Afrika iyo Geeska Afrika ba keenay hab xukun siyaasi ah oo cusub waayo Afrika laba hab isticmaali jirtay habka madax dhaqameedka oo ahaa laba qaybood boqor iyo markaasi suldaan boqor ugaas waxyaabaha isticmaali jireen oo madax dhaqameed ah waxay laakiin keenay madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare gole sharci dejineed baarlamaan waxyaabaha ay markaasi oo ahaa nidaam siyaasi oo cusub waxa ay markaasi si xad dhaaf ah u isticmaaleen khayraadka dabiiciga ah oo xagga dhaqaalaha saameyntii uu ahaa iyo alaabaha qaydin ee loo isticmaalo warshadaha oo markaa dalagga ka soo go'a beeraha oo la warshadeeyo oo loo isticmaali karo si fudud gumaystayaashu waxay markaasi Afrika dhex dhigeen xuduudo oo ah kuwa ugu saameynta badan leh kuwa ugu dhibaatada badan leh kuwaasi oo dhaliya dagaal sokeeye oo macnaheedu ma jeedno laba wadan oo darisa ayaa badanaa maran kooga ugu badan waxa uu ka dhacaa dhinaca xuduudaha oo ah waxyaabihii ay sameeyeen gumaystayaashu dawlad baynu oranaa waa maxay dawlad waxa la yiraahdaa nidaam siyaasi ah oo ay bulsho goob mucaayana ku yagleesho si ay u xaqiijiyaan himilooyinka asaasiga ah dawlad waxa la yiraahdaa nidaamka siyaasi ah oo ay bulsho goob mucaayana ku yagleesho si ay u xaqiijiyaan himilooyinka asaasiga ah dawladaha adduunku haddaba waa ay kala duwan yihiin waxayna ku kala duwan yihiin 3 hab koow lacagta oo wadan la lacag maaha 2 calanka 3 habka dawladnimada magaca 3 kamid ah waxyaabaha ay dawladuhu ku kala duwan yihiin waa lacagta calanka iyo habka dawladnimada oo qaabka ay markaas u kala sareeyaan waa maxay dawladdu baynu nidaahnaa waa nidaam siyaasi ah oo ay bulsho goob mucaayana ku yagleesho ku samaysto si ay u xaqiijiyaan himilooyinka asaasiga ah nidaamka dawladda hadaba Ethiopia waa hab nidaam nooceeya ama siyaasad nooceeya ay isticmaashaa taariikh kooban baynu iyadana ka sameyn doonaa Ethiopia wuxuu Talyaanigu si dadban u gumaystay 1936 ilaa 1941 oo muddo 5 sano noqon doonta hogaamiye dhaqameedkii ugu dambeeyana wuxuu ahaa ninka la oran jiray ama boqor Haile Selassie sanadkii 1970 waxa Ethiopia ka bilaabmay kacdoon iyo mudaaraad waxa laga soo jeeday boqor Haile Selassie marka iyo shaqo joojin iyo mucaaradnimo ayaa ka bilaabantay 1974 ciidamo ayaa amar diida sameeyay oo ah ciidamadii markaa dadka iyo shacabka loo adeegsan jiray ee dawladda markaas ka amar qaadan jiray ayaa diiday amarkii dawladda isla sanadka 1974 waxa la sameeyay dawlad ku meel gaar ah waxana madax looga dhigay Makanon Haile Selassie ayaa la casilay xilkii baa laga qaaday waxana la doortay nin cusub
oo boqora oo la oran jiray Makanan hase yeeshee waa la afkambiyey isla waqtigiiba hore loo dilay xilkiina hadana waxa la wareegay Hayle Salaase ayaa mar labaad ku soo noqday wuxuuna Hayle Salaase dhintay waa la afkambiyey isaga laftiisa oo mucaaradnimo iyo dil baa waliba loogu daray markaa 1975 taladii daba waxa la wareegay markii Hayle Salaase dil loo geystay ee la afkambiyey boqor isagna la oran jiray markaasi markii dambe ra'iisul wasaare noqday Teferre Benti waa maamulkii cusbaa madaxtinimadiisii Teferre Benti waxa isagna waa la afkambiyey markuu haystay muddo 2 sano ah waxa Teferre Benti la afkambiyey 1977 taladiina waxa la wareegay Mangiste Hayle Maryam dawladda Itoobiya waxa markaasi caawiyay midabkii Soofiyeed oo siiyay lacag badan Mangistana waxa uu noqday keldii taliye habkii maamulkii afkambiga ahaa way dawladda Itoobiya waxa ka yareeyay lacag caawinimo ah oo uga timid midabkii Soofiyeed oo hogaaminayay Ruushku doorashadii ugu horeysay waxa madax ka noqday markaasi Mangiste wadankuna waxa uu yeeshay xubno golo wakiil ah oo ka kooban 813 xubnood oo gorihii ugu horeeyay ay Itoobiya yeelato gobolada Eritrea iyo Tigreega marka Eritrea wadanka la yiraahdo inuu ku soo dhiganay Geeska Afrika waqtigii hore saynu soo sheegnay wuxuu ka mid ahaa markaasi Itoobiya asalkeegana waxaanu nidhi laba qowmiyadood baa ugu waaweyn oo aasaasay waa qowmiyadda Ahmara iyo qowmiyadda Tigreegu Itoobiyana way ku nool yihiin Eritreana way ku nool yihiin laakiin asalan waxay ka soo jeedaan Eritrea markaasi gobolada Eritrea iyo Tigreega ayaa noqday mucaarid dagaalo ayaa markaasi ayaa ka dhacay waxana burburay hanti badan oo ay dawladdu leedahay waxa kale oo burburtay kaalmadii uu Ruushku siin jiray waxana markaa adkaatay inay sii shaqeyso dawladnimadii Mangiste oo ahaa maamulkii cusbaa ee loo dhisay dawladda Itoobiya 1991 ayaa uu Mangiste u baxsaday Zimbabwe markii ay markaa uu ka baqay in la dilo oo la afkambiyo wuxuuna magangeliyo weydiistay madaxweynihii waqtigaasi haystay wadanka Zimbabwe oo la oran jiray Robert Mugabe 1991 Mallase Zenawi ayaa loo magacaabay madaxtinimadii 1994 Itoobiya waxay samaysatay dastuur cusub oo federaal ah markii uu Mangiste baxsaday waxa madax noqday oo bedelay oo la doortay Mangiste Mallase Zenawi Mangiste baxsaday waxa la doortay maxay Mallase Zenawi 1994 markii uu nidaamkii iyo dagaalkii iyo is-afkambigii iyo dawladda Itoobiya rabshado ka bixi weyday waxay samaysatay nidaam cusub oo la yiraahdo federaal oo macnaheedu yahay in maamul hoosaadyo fara badan la sameeyo ama maamul goboleedyo oo ay markaasi goboladu maamul soo dhistaan dawladda dhexena ay markaasi maamusho dawladda cusub ee Itoobiya waxaanu ka bilaabi doonaa ciwaan hoosaadka isagna ku xiga oo la yiraahdo Itoobiyada maanta hab noociye maadaama dawladda cusbeed ay samaysatay heer federaal waa qaab noociye habka siyaasiga ah ee Itoobiya dawladda cusub ee Itoobiya waxa la dhisay 1991 waxaanu soo sheegnay in dawladda Itoobiya ay tahay dawladda weyn gumaystayaashii kadib waxa dhacday markaasi is-afgambi fara badan waxa ka tarin jiray nidaamka markaasi boqortinimada boqorro fara badan baa soo maray nidaamkii cusbaa ee heer federaal ee dawladda Itoobiya ilaa maanta isku xukunto waxa la dhisay sanadii 1900 iyo markaasi 1991 2004 waxa madax ka ahaa Mallase Zenawi Mallasna waxa uu dhintay 2012 dawladdiina waxa markaasi loo magacaabay Hayle Maryam Itoobiyana waxay ka kooban tahay 10 maamul goboleed maamulka Itoobiya waxa markaasi ku saleysan yahay wada tashi waxaana markaasi hoos yimaadaan dawladda dhexe waayahay waxdiyaan su'aalo si guud u soo marno raadkii gumaystayaashu ku yeeshay Geeska Afrika magacaw 3 kamida 1 xagga siyaasadda 2 xagga dhaqaalaha 3 xagga xuduudaha
muddo intee leeg buu gumaysanayay ama gumaysigii dadbanaa ee maamulka talyaanigu waqtigeedeebuu ahaa markaa Ethiopia uu xukumayay sanadihii 1936 ilaa 1941 hogaamiye dhaqameedkii ugu dambeeyay Ethiopia kuma ahaa waxa uu ahaa Haile Selassie waxa uu ahaa ninka la yiraahdo Haile Selassie halkaas aynu ku soo gabagabayn doonaa insha Allah casharka ku xigeen insha Allah markaa halkan ku sii dari doonaa aad baan idin salaamayaa arday assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh